الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد waxaan soo wadnay tafsiirkeena quraanka kariimka ayaan soo wadnay gaar ahaan shanta juz hoos ayaan soo wadnay. waxaan soo gaarnay suuratul waaqi'a ayaan soo gaarnay ama suurada idaa waqa. suuratul waaqi'a waa suurad makki ah oo waxay ka mid tahay suuradaha soo degay nabiga calayhi salaatu wasalaam hijradiisa ka hor ay soo degtay. suuradan waxay ka hadlaysaa oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kaga hadlay qiyaamaha iyo dhicitaankeeda, saacada qiyaama iyo dhicitaankeeda in ay sugan tahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala saacada qiyaam waqti inuu u yeelay ay dhici doonto, wax celiya ama reebi karan aysan jirin. sidoo kale waxay ka hadashay suuradan aqsaamun naasi yawma alqiyaama, dadka inta nooc ay yihiin maalinka qiyaama inay u kala bixi doonaan saddex nooc, kuwa saabiquun ah ama muqarrabuun iyo kuwa asxaabul yamiin ah iyo kuwa asxaabul shimaal. intaba suuradu way ka hadli doontaa. waxay kaloo ka hadli doontaa sidoo kale qeyb walba ama nooc walbana meesha uu ku dambeyn doono oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala u diyaariyay abaalmar ahaan. suuradan waxay ka hadashay sidoo kale bacsiga iyo adiladiisa, isa soo saaritaanka maalinka aakhira in la soo saari doono bacthi uu jirona way ka hadashay suuradan. in badan oo insaanka kamid ahna ay beeninayaan bacsiga iyo isa soo saaritaanka. waxay ka hadashay suuradan sidoo kale quraanka iyo sharafta uu leeyahay. ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankan soo dejiyay inuu yahay quraankan min cindillaahi, ilaahay agtiisa inuu ka ahaaday. waxay ka hadashay sidoo kale suuradan makhluuqaadka qaar kamid ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuuray, haddana sidoo kale loo sakhiray bini aadanka oo nacf iyo waxtar uu ku haysto, sida dabka oo kale kamid ah iyo beeraha la abuurta ama la beerta. sidoo kale waxay ka hadashay insaankan abuurkiisa iyo khalqigiisa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu abuuray. bismillaahi الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. بسم الله إلهي مقعيسا ينكو بلابا يا الرحمن الله نحريست قود ودوميس دان نحريسنا أي الرحيم الله نحريست قاركا ومؤمنين تو نحريسنا مالنك آخر. إلهي سبحانه وتعالى وحوليه إذا وقعت الواقعة، إذا قرتي وقعت أي دعضو الواقعة تي دعيسي أو سعد قيامة ليس معهان liwaqcatiha dhicitaankeeda ama goorta ay dhacayso kaadibatun nafsun naf kaadibatun oo beeninayso. khaafidatun waa mid hoos u dhigayso, dadka qaarna hoos ay u dhigtaa, dadka mujrimiinta iyo faasiqiinta oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala taacadiisa ka baxayna hoos ay u dhigtaa maalinka aakhiro. raaficatun waa mid kor u qaadayso, dadka qaarna kor ay u qaadaa, muttaqiinta iyo dadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baqayna janno ayay geysaa, darajooyin ay kor ugu qaadaa. idaa rujat ilardu, idaa goortii rujat ilardu dhulka la gilgilo ama la ruxo, rajan gilgilid ama ruxid, wa busat iljibaalu buurahana la bitiyo, basan bitin ama budeen, buurahan intii laisku garaaco ayaa bus laga dhigaya, hawada ayaa la raacsiinaya. oo fakaanad ay noqoto marka habaa'an bus munbathan oo haddana la firdhiyey. oo wa kuntum aada noqotaan idinkana aswaajan noocyo halaathatan oo saddex nooc aad kala noqotaan. ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay idaa waqacat ilwaaqica, markay dhacdo tii dhacaysay oo saacada qiyaama ah, laysa liwaqcatiha kaadiba, goortay dhacaysona uma sugnaanin saacada qiyaama naf beenin karto, naf been sheegi karto ama beenin karto saacada qiyaama ma lahan. maanta oo kale in badan oo dadka ka mid ah saacada qiyaama way beeniyaan, bal waxay leeyihiin saacada qiyaama hadda keena haddaa run sheegaysaan, oo ambiyada ay ku leeyihiin sa'ala saa'ilun bicadaabi waaqic lilkaafiriina laysa lahu daafic min allahi dil macaarij. marka saacada qiyaama markay dhacdo
goortay dhacaysana qof walba wuu arkaya, ishiisa ayuu ku arkaya. qof beenin karo ama been sheegi karto markaas ma lahan. naf beenin karto ama been sheegi karto oo saacada qiyaamo yani oo beenin karto ma lahan. xilligaasay day qof walba wuu arkay, naf walbana way aragtay, wayna rumaysan tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay khaafidatu raafica, saacada qiyaamo markay timaado dadka qaarna kor ay u qaadaa oo darajooyin ay geysaa, waa dadka muttaqiinta. dadka qaarna hoos ay u dhigtaa oo naar iyo jahannamo iyo cadaab ilaahay hoos u geysaa. waatii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay thumma radadnaahu asfala saafiliin. intaas kadib insaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu abuuray oo abuurkiisa uu qurxiyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u celin doonaa meesha u dambeysa oo naarta salkeeda ayaa la geyn doonaa. ila aladiina aamanuu mooye, kuwa xaqa rumeeyey oo haddana samee camal wanaagsan, kuwaas waxay leeyihiin ajir aan go-eynin. marka waa khaafidatu raafica wey. saacada qiyaamo dadka qaarna hoose ay u dhigtaa, dadka qaarna kor ay u qaadaa oo dadka muttaqiinta ilaahi subxaanahu wa tacaala ka baqay darajooyin ayay siisaa oo janno iyo ilaahi subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshiisa kor loogu qaadaa. dadka mujrimiinta faasiqiintana hoos ayaa loo dhigaa oo ilaahi subxaanahu wa tacaala ciqaabtiisa ay galayaan. idaa rujat ilardu raja, ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay markii la giligilo oo la ruxo dhulka, rajan gilgilid ama ruxid. waatii ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay suuratu zalzala, idaa zulzilat ilardu zilzaalaha wa akhrajat ilardu athqaalaha wa qaala alinsaanu maa laha yowmaidin tuxadithu akhbaaraha biana rabbaka awxaa laha yowmaidin yasduru nnaasu ashtaatan liyuraw acmaalahum wey. dhulkan sidan u weyn, sidan u ballaarana intii la ruxo oo la gilgilo ayaa wixii gudihiis ku jira dhan ayaa laga soo saaraya, amaba asigaa iska soo saarayo. ilaahi subxaanahu wa tacaala waa tii uu ku sheegay suuradda inshiqaaq, ida asamaau inshaqat wa adinat lirabbiha waxuqat waida alardu muddat wa alqat maa fiiha watakhallat. dhulkana markuu ismariyo oo isbaneeyo waxa ku duugan oo makhluuqaada banaanku usoo saaro. idaa rujat ilardu raja wabusat iljibaalu bassa, buurahana in la betiyo, buuraha intii laisku garaaco oo bus laga dhiga ayaa hawadaas la marinaya. fakaanat habaa munbatha, markaas ay noqoto ama buuraha ay noqdaan bus oo haddana la firdhiyey oo hawada la marsiiyey. wa kuntum aswaajan halaatha, idinkana aada noqotaan noocyo oo saddex ah, saddex nooc aad u kala baxdaan. noocna waa almuqarabiin wey, kuwa ilaahi subxaanahu wa tacaala soo dhaweystay ama assaabiquun. nooc kalena waa asxaabulyamiin, dadka midigta asxaabteeda, suuradda ayaa noo sheegi doonta. nooca saddexaadna waa asxaabu shimaal, bidix dadkeeda wey. oo wa kuntum aada noqotaan aswaajan noocyo halaathatan oo saddex ah. fa asxaabu lmaymanati, ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fa asxaabu lmaymanati, midigta dadkeeda maxay bay ahaadeen. asxaabu lmaymanati, midigta dadkeeda nicmooyinka iyo barwaaqooyinka ay ku sugan yihiin maxaa ku ogeysiya, maxaad ka taqaanaa wey. wa asxaabu lmash'amati, bidixda dadkeeda maxaa ku ogeysiiyey. asxaabu lmash'amati, bidixda dadkeeda waxay yihiin oo cadaab iyo naar iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubadiisa ay ku sugan yihiin. wasaabiquuna, kuwa hormaray yani fi lkhayraat, khayraadkii wanaagu u hormaray. assaabiquuna waa kuwa u hormaray ila ljannati, jannada weeye. ulaaika kuwaasna saabiquunta almuqarabuun waa kuwa lasoo dhaweeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayaa lagu soo dhaweeyey. fii jannaati naciim, waxay dhex ahaadeen naciimooyinka iyo barwaaqooyinka jannooyinkooda ayay dhex ahaadeen. ama ulaaika kuwaas almuqarabuun waa kuwa lasoo dhaweeyey fii jannaati naciim, naciimooyinka iyo barwaaqooyinka jannooyinkooda ayaa lagu soo dhaweeyey. thullatun koox oo assaabiquun ka mid ah min alawaliina waxay ka ahaadeen ummadihii hore. wa qaliilun in yarna min alaakhiriin waxay ka ahaadeen ummadihii dambe oo ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay ka ahaadeen. calaa sururin, sariiro ayay ku dul sugan yihiin, mawduunatin oo haddana dahab lagu taxay oo dahab lagu taxay ama dahab lagu hardhay. muttaki'iina waxay ku dangiigsan yihiin ama ay ku jiqlaysan yihiin calayhaa sariiraha dushooda, mutaqaabiliina ayagoo isqaabilaya oo haddana ay sheekeysanayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay
fa asxaabul maymanati maa asxaabul maymana midigta dadkeeda maxaa ku ogeysay waxay yihiin midigta dadkeeda. suuradda ayaa noo sheegi doonta ama dhexdeeda ayaa lagu sheegi doonaa asxaabul yamiin waxay yihiin iyo barwaaqooyinka ilaahay subxaanahu watacaala u diyaariyey. wa asxaabul mash'amati bidixda dadkeeda maxaa ku ogeysay waxay yihiin bidixda dadkeeda. ayagana way noo imaan doonaan. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u diyaariyey oo ciqaab ah. bidixda dadkeedan waa kuwa xaqa beeniyey, xaqa diiday oo kitaabkooda gacanta bidix lagu siiyey wey. wasaabiquuna saabiquuna kuwa hormaray oo khayraadka u hormarayna waa kuwa u hormaray ilaahay subxaanahu watacaala jannooyinkiisa. ulaaika almuqarabuun kuwaasna waa kuwa lasoo dhaweeyey, waxaana lagu soo dhaweeyey naciimooyinka iyo barwaaqooyinka jannooyinkooda ayaa lagu soo dhaweeyey. thullatun koox oo saabiquunta ka mid ah min alawaliin waxay ka ahaadeen ummadihii hore ay ka ahaadeen. wa qaliilun in yarna min alaakhiriin ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay ka ahaadeen. marka ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saabiquunta way ku yar yihiin, waa wax yar. ummadihii hore ayay ku badan yihiin. ilaahay wuxuu leeyahay wa qaliilun in yar ay ahaadeen min alaakhiriin ummadda dambe oo ama kuwa dambe oo ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. calaa sururin waxay yani ay ku dul sugan yihiin sariiro oo haddana mawduunatin oo dahab lagu taxay, dahab lagu xardhay oo qurux badan ayay ku dul sugan yihiin. muttaki'iina calayha waxayna ku dangiigsan yihiin ama ay xusuleysan yihiin sariiraha dushooda. mutaqaabiliin haddana way isqaabilayaan oo way sheekeysanayaan. yatuufu waxaa wareegaya calayhim dushooda wildaanun wiilal ayaa wareegayo mukhalladuuna oo haddana la waariyey. biakwaabin koobab ay la wareegayaan iyo wa abaariiqa iyo jelmado iyo wa ka'sin koob oo khamro ah oo khamro ka buuxdo oo min maciinin ka ahaaday il durduraysa ay ka ahaatay. laa yusaddacuuna ma madax wareerayaan canhaa khamrada xaggeeda walaa yunzifuun haddana caqligoodana ma tagaayo oo caqligooda wuu joogaa, mana wareerayaan, caqligan lagama qaadayo. wa faakihatin iyo qudaar ayaa u sugnaatay oo mimaa kii ka mid ah yatakhayaruuna ay doordooranayaan. wa laxmi tayrin iyo shimbir hilibkeeda ayaa u sugnaaday oo mimaa kii ka mid ah yashtahuuna ay jecel yihiin. wa xuurun walahum waxaa u sugnaaday xuurun dumar oo cadcad ayaa u sugnaaday. ciinun oo haddana indha balbalaaran oo indhahooda yani jeexa uu ballaaran yahay uu weyn yahay. ka amhaali lulu dumarkaasoo aada moodid ka amhaali lulu sida luulka oo kale ama jawharta oo kale almaknuun oo haddana la qariyey. jazaan juzuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmar bimaa shay sababtiisa lagu abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyo. laa yasmacuuna ma maqlaayaan fiihaa jannada dhexdeeda lagwun hadal xun walaa ta'hiiman iyo dembiba laisu aaneeyo, hadal dembi ah iyo hadal xunba intaba ma maqlaayaan. ilaa qiilan ilaa orah mooye oo la leeyahay salaaman nabadgelyo, salaaman nabadgelyo dusheena ha ahaata la leeyahay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yatuufu calayhim wildaanu mukhalladuun. wuxuu ku sheegay ilaahay subxaanahu watacaala halkan dadka assaabiquun, dadka kheyrka u hormaray, wanaagga u hormaray, abaalmarka ilaahay subxaanahu watacaala u diyaariyey maalinka aakharo. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku abaalmariyey janno iyo barwaaqooyinkeeda. sariir oo dahab lagu taxayna waa loo diyaariyey, wayna ku dangiigsan yihiin. dushoodan waxaa wareegaya ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegay wildaanu wiilal. yatuufu calayhim waxaa wareegaya dushooda wildaanu wiilal oo qurux badan oo haddana mukhalladuuna oo la waariyey, wiilnimadooda ayaa la waariyey. waxay la wareegayaan biakwaabin koobab iyo wa abaariiq iyo jelmado iyo wa ka'sin iyo koob khamro ay ka buuxdo oo min maciinin haddana ka ahaaday il durduraysa. isha khamrada oo durduraysa ayaa laga soo daray, ahluljanno ayaa la waraabinaya. laa yusaddacuuna canhaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ma madax wareerayaan oo ma waalanayaan khamradaas ay cabeen sababteeda. walaa yunzifuun caqligoodana ma tagaayo. qofka adduunyada markuu joogo khamro uu cabo caqligiisna wuu tagayaa, wuu madax wareerayaa. laakiin ahluljannaha markii khamro la cabsiyo ay waraabaan caqligoodan wuu joogaa, maankooda wuu joogaa, mana wareerayaan. wa faakihatin iyo waxay leeyihiin khudaar iyo waxyaalo lagu macmacaansado fawaakih
oo mima yatakhayaruuna waxyaalaha ay dooranayaan ka mid ah ayagaa dooranaya noocii ay rabaan ay cunayaan kii ay rabaan waa iska dhaafayaan iyo walaxmi tayrin iyo shimbir hilibkeeda ay leeyihiin oo mima kii ka mid ah yashtahuuna haddana ay jecel yihiin oo ay doonayaan haddii la waraabiyey oo qudaar la siiyey oo cunno la siiyeen waxay u baahan yihiin xaasas ay u baahan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u diyaariyey dumar cadcad oo indhahooda jeexoodan uu ballaaran yahay waxuurun ciin ilaahay wuxuu u diyaariyey dumar cadcad oo haddana indhahooda uu balballaaran yahay oo qurux badan ilaahay wuxuu leeyahay ka amhaali lu'lu dumarkaas waxaad moodaa sida jawharta oo kale ama luulka oo almaknuun oo haddana la ilaaliyey oo gacan laga ilaaliyey banaanka laga ilaaliyey oo haddana qurux badan jazaan bimaa kaanuu yacmaluun kaasna waa abaalmar oo waxay soo shaqaysteen sababtiis lagu abaalmariyo laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa ta'hiima markay jannada ay galaana jannada dhexdeeda ma maqlaayaan hadal xun iyo demb iyo macaasi inta ma maqlaayaan ilaa qiilan salaaman salaama ilaa waxaa la leeyahay nabadgelyo dusheena ha ahaato malaa'igta ayaa usoo galayso ay salaamaysaa rabbi subxaanahu watacaala ayaa salaamayo marka dushooda waxaa ahaaday nabadgelyo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu nabadgeliyey marka ilaa qiilan ilaa hadal mooye oo la leeyahay salaaman nabadgelyo ama nabdaadin salaaman nabdaadin ama nabadgelyo dusheena ha ahaato ayaa la leeyahay wa asxaabu lyamiini midigta dadkeeda haddana waxaa laga bilaabay meeshaan nooc labaad saddex nooc way dadka kow inay yihiin asaabiquuna kuwa khayrka u hormaray ama asxaabu lyamiin dadka midigta dadkeeda iyo asxaabu shimaal iyo bidixda dadkeeda nooca labaad ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wa asxaabu lyamiini midigta dadkeeda maxay bay ahaadeen asxaabu lyamiini midigta dadkeeda fii sidirin waxay dhex ahaadeen geed gob ah makhduudin oo haddana la qodax tiray oo qodaxaha laga gooyey wa talxin iyo moos mamduudin oo haddana mirihiisa la isdul saaray wa dhillin iyo hoos mamduudin oo haddana la taagay hoos weyn ay ku dhex sugan yihiin oo ay joogaan wa maa-in iyo biyo maskuubin oo haddana la shubay wa faakihatin iyo qudaar ay ku dhex sugan yihiin oo ay cunayaan kathiiratin oo fara badan taasoo laa maqtuucatin aan la wayneynin oo haddana walaa mamnuucatin haddana aan la diideynin mana la waayo oo ma go-do mana la diidaayo wa furushin iyo firaasho ay ku dul sugan yihiin ama ay ku dhex sugan yihiin marfuucatin oo haddana la koryeelay inaa anaga ayuu leeyahay allah subxaanahu watacaala ansha'naahunna ayaa abuurnay dumarka oo ahluljannaha ah inshaaa abuurid ayaan abuurnay fajacalnaahunna waxaan ka yeelnay abkaara waxaan ka yeelnay kuwa bikaarooyin ah oo gabdho ah curuban oo haddana jecel ragga ama isjeclaysiiyo atraaban oo haddana isku da ah oo da-doodana ay wada simin tahay liasxaabi alyamiin waxaan u ahaysiinay aan u yeelnay liasxaabi alyamiini midigta dadkeeda hullatun koox oo asxaabulyamiin ah min alawaliina waxay ka ahaadeen ummadihii hore wa hullatun kooxna min alaakhiriin waxay ka ahaadeen ummadihii dambe oo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ummadiisa ka ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wa asxaabu alyamiini maa asxaabu alyamiin midigta dadkeeda maxaa ku ogeysay waxay yihiin ilaahay subxaanahu watacaala nicmadii oo barwaaqooyinku u diyaariyey waxay dhex ahaadeen fii sidirin geed gob ah oo haddana makhduudin qodaxa laga gooyay oo la qodax tiray bal qodaxa waxaa loogu bedelay miro oo ay cunayaan oo macaan badan wa talxin iyo moos oo mamduudin haddana mirihiis la isdul saaray geed moos ah oo mooskiisa aada u baxay mirihiis la isdul saaray ay ku dhex sugan ay cunayaan wa dhillin iyo hoos oo mamduudin oo haddana la taagay hoos weyn oo ballaaran ay ku dhex sugan yihiin oo qorax isma arkayaan wa maa-in iyo biyo maskuubin oo haddana la shubay biyo shubmaayo oo socdo ayay iska cabaayaan biyahaasa ahaadaan biyo durduraayo ama biyo ayaga soo shubanayaan biyo ay iska cabaayaan oo haraad iyo coon ma qabanayo wa faakihatin kathiira sidoo kale waxay ku dul sugan yihiin ay cunayaan miro fara badan oo ay ku raaxaysanayaan taasoo laa maqtuucatin aan la wayneynin ma go-eyso lama waayo walaa mamnuucatin haddana mana la diido oo ahluljannaha inay ka go-do ma noqonayso mar walbay taagan tahay haddana lama waynayo mana la diidayo oo looma diidayo way iska cunayaan
وفرش iyo firaasho ay ku dul sugan yihiin marfuucatin oo hadana la koryeelay inna ansha'naahunna anaga ayaa abuurnay dumarka ahlul jannaha ah insha'a abuurid faj'alnaahunna waxaan ka yeelnay abkaara gabdho iyo bikaaroyn ee laga yeelay ilaahay subxaanahu wa ta'ala dumarka jannada galaayo xitaa hadday yihiin kuwa da'weyn ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka dhigayaa gabdho yar yar oo qurux badan oo bikaaraha ayuu ka dhigaya Allah subxaanahu wa ta'ala nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa u imaatay qof dumar ah oo da'weyn ayaa u imaatay markaas waxay ku tiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay ii tuug inaan janno aan galo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay qof da' ama cajuuza ah janno ma gasho intaas kadib qoftii dumarka way jeesatay oo iska tagtay ayadoo ooynayso markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay u sheega markay jannada ay galayso waxaa laga dhigayaa gabar oo bikri ah ayaa laga dhigayaa markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam aayadan ayuu akhriyay inna ansha'naahunna insha'a faj'alnaahunna abkaara anaga ayaa abuurnay dumarka ahlul jannaha ah waxaana ka yeelnay ayuu leeyahay Allah subxaanahu wa ta'ala kuwa bikaarooyin ah urban atraaba hadana waxaan ka yeelnay kuwa ragooda jecel ama isjecleysiyo oo hadan isku da' ah oo aan kala weyneyn li asxaabil yamiin waxaana loo yeelay ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuuray dadka asxaabul yamiinta midigta dadkeeda oo ahlul jannaha ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuuray thullatun koox oo asxaabul yamiin ah min al-awwaliina waxay ka ahaadeen ummadihii hore wa thullatun kooxna waxay ka ahaadeen min al-aakhiriin ummadana Muhammad calayhi salaatu wasalaam ay ka ahaadeen